قال هذا ما أنت شوكت قال كوجوين وريتشارد دوكنس ونبي الإلحاد بيجوا هذا a prophet of atheism دين لا أنت النبي هذا بيكون شاعرين وياي وأنا قال لي good delusion أيا وحليه هي من الصعب جدا الدفاع عن القيمة الأخلاقية المطلقة على أرضية أخرى غير الدين ووح أدق بولي إن أدودو value أخلاقيات أخلاق في عيني إن أتكور رمي كرتو أدقو أن كنت أجنين بولي دول دينيت دين الآن يا أخلاقي مرنبا اسم فوليان بولي هذا وكان لا إلهي ما شردتك ويريا وبوكي سجدل يشبكوا غريا حلي أخلاق لا هدات ربطو إن فاليو سون شاكتو وإن كنت أجنت هيبوت المام يا محي religious ground هدارت هيسانين مصر تقال هبوت المام يا أيها الأحبة هل إن مركا إلهي سبحانه وتعالى وحين إليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون لبتشير بإلهي نوسو علي إلهي عبسيدي سيني نكد داله إغنانا ولتنظر نفس علماء وحيد هذا آيات قيبته هوري مركي اللي سفريي تقوى انت إيمانكم بالله يا أيها الذين آمنوا لكن مركي اللي سفريي نولاشين لقرشايو ولتنظر نفس أي كل نفس نفيها اكتبا ليري مركا وحيد هذا النداء بالتقوى ولخصوص المؤمنين بيت الماما وهي يقوم بمنتفعين والأمر بالنظر لعموم كل نفس نفيها اكتبا إلهي ما قدمت الغد بري وحظهر مرسطه الغد بريدا دوا نقون كرا بريدا دروك سنة ونقون كرا وحكاد دم بيودمي وبريتو وحكاد دم بيودمي وبريتو إن الله خبير بما تعملون إلهي وقنوغي هي وحا صمين إنسان قصدقا كاليدين هي بواطنتين هي ظواهرتين من ربي وأوغي سبحانه وتعالى وحا هبال مرك الدنيا آخرة أيين هريا له الدنيا آخرة اسم الله اسكو قيمنا معها اسكو الرسكي اسكو مشكلتنا معها taasi waxay u baahan tahay marka wax la qorsheynayo keeba mudnaanta leh yani marka qorshe degayso nolosha waxaad qaban doontaa priorities ba kala jira waxbaad kala horeysiinaysaa siday u kala weyn yihiin u kala muhiimsan yihiin baad u kala horeysiinaysaa qorshaheena waa inuu u weynaadaa qorshaha aakhiro dabeetana qorshaha adduunyo marka leena waa inuu u weynaadaa qorshaha aakhiro qofka muslimka ah ee siyaasiga ah ugu horreyn inuu ka fekeraa ummaddan say aakhiro naar uga baxsan lahayd jannana u geli lahayd waayo that's the most important thing waa waxa ugu muhiimsan ee aad dad u qabatid ثانيا baad isweydiinaysaa taa sida loo gaadhayo ee adduunkan inta la joogana si aan loo kadeedmeyn ee adduunkana nolol fiican loogu noolaan lahaa waxaan leenahay marka aynu qorshe dejinayno waa inuu priorities ku kala horeeyaan weliba waxa hubanti ah haddii qorshaha dambe ee aakhiro uu noqdo ka muhiimadda leh ka adduunyana automatically inuu hagaagayo waayo aakhiro laguma gaadho adduunka kharibkiisa aakhiro waxa iyadana lagu tagay ku islaaxdaa maxay adduunkan islaaxintiisa tanba mazraca u ah marka ugu horeyn waa inaynu aad uga fakarnaa ilaahay wuxuu leeyahay yawma tajidu kullu nafsin ma camilat min khayrin muhdara wama camilat min suu'in tawaddu law anna baynaha wa baynahu amadan bacida wayuxadirukum allahu nafsah والله رؤوف بالعباد فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره qorshahaaga koowaad waa inuu ku jira wax kastoo aad samayso barnaad la kulmaysaa muxuu yahay jawaabtaadu wax kastoo aad samayso adduunkan aad qabato wax kastoo aad qabato
camal kastoo kaa soo fula baraad la kulmaysaa ee maxay tahay jawaabteedu sidaa awgeed ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam dhallinyaru la talinayaa nin dhallinyaro ah innagu dhallinyarada markaynu la talinayna maxaynu ku nidhaahnaa haddaad nin dhallinyaro aragto waxbaro nin noqo xoogso guurso shaqayso soo kaa maaha taladeenu talada ugu badan ee dadku waa in dhow unbay dadku arkaan maca kuwan ay yidhaahdaan indheer garad indheer ma arkaan indhow bay arkaan dadku waa wada indhow garad buu u badan yihi waxaynu ilmahaaga qorshaha kuu yaallaa muxuu yahay koowaad iskuul dhigo jaamacad ka bax guurso nin noqo taa waxaad ogoshahay inaad ku bixiso maxay waxay u baahantoo dhan baad diyaar ula tahay waxay u baahantoo dhan baad maxay ula tahay ayaad diyaarinaysaa iskuulku gali lahaa kuu noqonayo jaamacaddu ka bixi lahaa kuu noqonayo kharashku u baahnaan lahaa waxaasoo dhan waad diyaarinaysaa maxaad uga dan leedahay nolosha dhow inuu guulaysto berritaad injineer noqon ama dhakhtar noqon ama saan noqon ama ka noqon markaa qorshahaagu wuxuu badayay ma diyaarinay dhammaanteen isku keen dar wadaad iyo wabiinba keen raace intaa in leeg ma gelinaa aakhiro si uu qofku u guulaysto aakhiro si uu qofku u guulaysto programkaynu degaynaa ma ku jirtaa intaa in leegoo investment ahay bal wax kaleba ha dambeeyaane maya waxaa kugu adag macallinka qur-aanka dhiga $20 la siiyo war kuwa malcaamadooda waa qaali baa taagantay laakiin waad ogashay jaamacadda dhowrka kur inaad bixiso ee uu dhakhtarnimada ka baranayo waayo tan dhow qorshahay kuugu jirtaa oo aad baad u qorshaynaysa nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam cabdillaahi ibnu cumar oo nin dhallinyaro ah buu la talinaya garabka intuu ka dhirbahay xadiidkaa taqaaniin ee bukhaari ku yaalla kun fi dunya kaannaka gariib aw cabiri sabiil waa nin dhallinyaro ah waryaa xoogso lama odhan oo nin noqo oo guurso oo kan sameeyo xoolo dhaqo laakiin waxaa la ogayay hadduu ta dambe fikraddeeda qabo tan hore inay islaaxayso saa daraaddeed buu nebigu wuxuu ku yidhi kun fi dunya kaannaka gariib adduunkan waxaad ku ahaataa sidii qof maxay gariiba stranger qof aan meesha u dhalanin ama waxaad noqotaa maxay aw cabiri sabiil qof musaafira qofkaas inta uu ka fakaro inuu meeshaa joogo ama qorshuhu u dejiyo qorshe leeg u deji markaa xooggaaga iyo xoolahaaga iyo qorshahaaga xoogeen xaggaad u dejinaysaa ta dambaad u dejinaysaa inaad ta dambe horraysiiso ayaa muhiima